musiibo la mid ah tii horaan uga dhacday magaalada Laascaano ayaa waxay sidoo kale xalay ka dhacday magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag. magaalada Ceerigaabo xalay waxaa ku dhammaaday dad shacab ah kadib markii wadooyinka waaweyn ee magaalada Ceerigaabo ay ku soo banaan baxeen dad rayid ah kuwaasi oo ku cabiriyay aragtidooda ama aftidoodaba ku soo gudbinayay banaanbaxaasi iyagoo waliba ula jeeday in dadka walaalahooda ah ay ku dhibaatoobay ama ku waxyeeloobay dagaalkii 4 bilood ka socday magaalada Laascaano in ay ku taageeraan ama fikradooda kaga aadan dhankaasi ay ku muujiyaan. hase yeeshee ciidamada Somaliland oo iyagu caadadooda tahay in shacabku aysan u turin isla markaana ay xabad ugu jawaabaan ayaa waxa isla markiiba ugu jawaabay xabad iyo ku garaacay suuq dad shacab ah oo markaasi mudaharaadayay oo wadooyinka hay. magaalada qaybaha ugu badan waxa ku sugan ciidamada Somaliland halka qaybo badan oo kamid ah dadka shacabka ay xoog ku qabsadeen isla markaana uu ka dhacay dhimasho dhaawac iyo waliba khasaaro dhan walba leh. haddaba arrinkaasi ayaan faaqidi doonaa hadduu Rabbi idmo iyo waxa xilligan ku soo beegay waxaan sidoo kale eegi doonaa hadduu Rabbi idmo xaaladihii magaalada Boorama iyadana halkay ku dambeysay xarunta gobolka Awdal iyo dadka shacabka waxa ay qorsheynayaan. kusoo dhawaada hadduu Rabbi idmo qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahsan muuqaalka like saar asxaabtaan u share gareey sidoo kale channelka subscribe saar si aad ula socoto una hesho warar xaqiiqada ku saleysan oo maalinle aanu ku horeyna musiibada xalay magaaladaasi ka dhacday ayaa maanta baraha bulshada si weyn u haysata iyadoo waliba tirakoobkii lagu sameeyay dadka halkaasi ku waxyeeloobay uu socdo. waxaa sidoo kale xusid mudan in gebi ahaanba goobo ganacsi oo waaweyn oo ku yaalay shaariicada magaalada Ceerigaabo dhulka lagu daray kadib markii dadka shacabka ah ay aad uga caroodeen xabadda loogu jawaabayo. inta badan ciidamada Somaliland waxaa lagu eedeeyaa in dadka shacabka ah ay xabad ugu jawaabaan iyaga oo heli kara in ay shakhsiyaadka hogaaminayo banaanbaxyada ama mudaharaadyada ay u arkaan inay carqalad ku yihiin amniga inay xabsiga u taxabaan oo qabtaan iyaga oo yeeli kara ayaa waxay inta badan ugu jawaabaan wax ka weyn bulshada shacabka ah ee banaanbaxaya waxa gacmaha ay ku wataan. dadka shacabka markay banaanbaxayaan taageerada ay gubaan kuwa aad u caraysan sida hadda magaalada Laascaano sida dagaalku ka bilowmo kale kuwaas ayaa dhagxaan wax sidaas tuuraan laakiin inta kale waxay u badan tahay banaanbaxda aragto waa baaq nabadeed يعني wax unbu dadka shacabka ay dhibsanaya ama ay doonayaan in laga daayo marka caalamka ma jirto meel dad shacab ah oo banaanbaxaya loogu jawaabo xabaddu waa meesha ugu dambaysa ama xalka ugu dambeeya ee loo arko in amniga lagu xasilin karo ma aha isla wixii laga mudaharaadayay in isla wixii isaga ahaa haddana lagu bilaabo shacabka. dadkani shacabka ah xalay ayay isku soo baxeen waxayna dareenkooda ku muujiyeen ama ay ka muujinayeen arrimaha ka jira Sool Sanaag iyo Cayn iyagoo waliba si toos ah u garab istaagay dadka reer Sool ama reer Laascaanood 3 bilood ama 4 bilood ee noo dambeysay halkaasi dhibaatada weyn ay ku haysatay. dagaalkaasina sida uu ka bilowmay dadka aad ayay ula socdaan waayo wax walba oo dhaco ama waaqic kasta oo jira baraha bulshada ayaa la soo dhigaa. dagaalkaasina waxa uu ka bilowmay hadii dib ay xusuusiyo waxay ahayd dad shacab ah oo banaanbaxaya kana mudaharaaday dilkii Ilaahay u naxariistay loo geystay ninkii dhalinyarada ahaa ee Hadraawi la oran jiray markaasi reer Laascaanood ahaa oo xibin muhiim ah u ahaa dadka reer Sool una dhaqdhaqaaqi jiray arrimaha bini'aadanimada ee dadka gobolka ku nool kadib markii si xaq darro ah ama si cad oo bareer ah loogu toogtay shaarica ay dadka shacabka waxay u adkeysan waayeen in ay sii fadhiyaan. saas darteed dadkii mudaharaaday ee banaanka u soo baxay ayaa 500 oo qof la isdul saaray kadib markii lagu furay rasaas aad u tiro badan ciidankana amar lagu siiyay in inta xabad ay qori ugu jirto ama hal rasaas ama hal gumac oo qoriga ugu jiro in aysan reeban oo cidii ka soo horbaxdaba ay xabadka jeexaan. saas darteed muddo yar oo 2 isbuuc xitaa in ka yar tahay lagu qiyaasay ayaa waxa ku dhimatay dad 480 qof gaaraya ayaa ku dhimatay taasi oo adduunka meel ay ka dhacdayba ay yar tahay in muddo intaas la eeg dad intaas la ay ku dhamaadaan. waxaase sidoo kale nasiib darro ahayd dadkaasi waxay ahaayeen dad shacab ah ma ahayn dad dagaalamaya ma ahayn dad hub wata ma ahayn dad soo duulay ma ahayn dad meel kale ka yimaaday magaaladoodii ay ku dhasheen baarsaal loogu xasuuqay sidaas lagu yeelay. marka shacabka reer Somaliland Ilaahay ayaa u maqan ciidankoodana waxaad ogtiin xitaa magaalada Hargeysa dhacdooyinka ka dhacay sanadkii la soo dhaafay ama sanadkii dhamaaday
birihiisii u dambeeyey mudaharaadyo sidaas oo kale sixir bararka iyo waxyaabahaas looga soo horjeeda in dad badan ay ku dhammaadeen ilaa dhowr iyo 20 qof kadib markii ciidanka rasaas ay ku fureen ciidanka marka Somaliland waxa adduunku isweydiinayaa ama dadku isweydiinayaan waxa ka khaldan iyo waxa ka sii noqda mar alla markay arkaan dadka shacabka ah ee mudaharaadaya dadkan shacabka waa dadkii qoryaha u wataan waa dadkii matalayaan waa dadkii soo tababaray waa dadkii meesha kaansaday waa dadkii dawlad ku yihiin shaarka u wataan ma aha dad cadawullaahi ah oo markaasina ku soo duulay deegaanka isla deegaanka ay ku dhasheen ay joogaan kaliya waxa ay dhibsanayaan in laga daayo intaasi un bay banaanbuxu ayuu daaran yahay iyo baaq nabadeed laakiin ciidanka Somaliland mar walba waxay geystaan dhibaato ka dhan ah dadka shacabka waad ogeedeen Boorama waxay ka dhacay toddobaadkan Boorama dad badan ayaa ku dhamaaday oo shacaba mana jirto cid ilaa hadda xuquuqdooda raadinaysa oo maartay u doodaysa ama ku maqan ma jirto sidaas oo kalena dil inbuu ka kacay dil markuu dhaco banaanbax shacabku waa ku qasban yihiin waayo qof qaali ku ah shacabku hadduu baxo inay banaanbaxaan waa waxa kaliya ama awoodda kaliya shacabka uu leeyahay weeye banaanbaxaasina adduunka ayay ka jirtaa meel caalamka ay ka jirto banaanbax xabad loogu jawaabayana ma jirto Somaliland ahayn Soomaaliya aysan ka jirin Djibouti baysan ka jirin deegaanada kale aysan ka jirin guud ahaanba gobolkaysan ka jirin geeska Afrika aysan ka jirin ciidan ka hor imaada la garay siyaasad isku dagaala la garay hadduu alla ku fikrada kala duwan la garay laakiin xabad in dad shacab ah oo banaanbaxaya oo baaq raadinaya xabad loogu jawaabo Somaliland bay ka dhacday waana arrinka ilaa iyo hadda dadka caalamka ay la yaaban yihiin waxa ay ka damacsan yihiin arrinkaasi dadka ayaa waxay saadaalinayaan in ciidamadu qudhigoodu ay yihiin dad dabada laga riixayo oo mucaangagnimadaasi iyo dadka shacabka ah loo turaynin uu ka dambeeyo madaxweynaha haatan talada haya Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyaga oo waliba kooxaha mucaaradka ama isbahaysiyada mucaaradka ay markaasi arrinkaasi ka soo horjeedaan oo eedda dhabarka ka saarayaan Muuse Biixi Cabdi in xilka uu wareejiyo in si degdeg ah xilka looga qaado in maartay ayuunba xasiloonida Somaliland ku xirantahay ay leeyihiin dadka ka fikrad duwan xisbiga ma haatan uu Muuse Biixi hogaaminayo ee xilka haya magaalada Boorama sidoo kale waxaa la warinayaa in xaaladeedu aad ay u qasan tahay iyadoo oo waliba ballanqaadkii loo fuliyay shacabka ay lagu joojiyay mudaharaadyadu ay ahayd in tiirka lagu soo xiri doono toddobaadkan gudihiisa ninkii dilka xaqdarrada ama gardarrada ah ee tooska ah u geystay wiilkii reer Awdal hase yeeshee kama soo ilaa hadda cadda warkaasi dhanka dawladda ama Somaliland xaggeedu warkaasi war cad oo dadka ay ku qanceen ma ahayn kaliya waxa uu ahaa mid ay doonayeen inay ku joojiyaan mudaharaadyada iyo carqaladaha halkaasi ka jira hase yeeshee dabka maanta meelo badan ayuu ka qaxayaa oo Somaliland gudaheeda dhibaatadaasi oo dhanna waxaa isku keenay ay leeyihiin dadka ama ku cadba adiga qudhaaga daawanaya aad ogtahay in uu yahay Muuse Biixi iyo maamulkiisa iyo waliba ciidamadan ay dadku ku tilmaameen maafiyo kuwaasi oo dadka shacabka ay banaanbaxaya xabad ugu jawaaba kaliya fikradda ama ra'yiga ay soo kordhinayaan ay tahay xabad inay ugu jawaabaan dad rayida ama qof iska laafiyoonayo oo gacmo laalaada inaad xabad ugu jawaabto ogtahay tawartiisaba inaad qabashadaas aad ku awoodi xitaa oo istaag inta tiraad iska istaagayo inaad xabad ugu jawaabto arrinkaasi waa arrin aad iyo aad looga argagaxay loogana cabsaday dadkuna ay la yaaban yihiin magaalada Ceerigaabo xaaladeedu aad ay u qasan tahay welina waxaa socotay koobka rasmiga dadka halkaasi xalay ku waxyeelooba ma ku dhintay inkasta oo dhaqaale burbur badan uu soo gaaray magaalada shaaraceeda ayna ku jajabtay qodobadeena dambe ay ku maqli doontaan